kusoo dhawaada barnaamijkeennan waxaynu kusoo qaadanaynaa hadalkii uu yidhi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland Saylici ninkaas oo hadallada uu yidhi ay ahaayeen hadallo runtii colaad iyo xumaan badan ay ka muuqato waxaynu eegi doonaa oo falanqeynaynaa bal hadalladiisaas aynu iskor taagaynaa mid waliba bal marka iyo qiimaha iyo waxa uu leeyahay iyo sida uu u jeedo iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in fariintani ay tahay fariin la soo faray ayaan ahayn mid isaga caqligiisa iyo garaadkiisa kasoo maaxatay sida caadiga ah kama hadla ninkani siyaasadaha hal mar ayuu hadlay intii dagaaladani socdeen waxa uuna yidhi argagixisa ayaa ka dagaalamaysa magaalada Laascaanood waxaana hadalka ugu horreeyay Muuse Biixi iyo dhowr mas'uul oo maamulka Somaliland ka tirsan ayuu isaguna hadalkii ka daba yidhi laakiin hadal isagu uu curiyo oo isaga maskaxdiisa kasoo maaxdo oo kaligiis uu yidhi ilaa ay hadda lama hayo markii labaad uu hadlayna hadda ayay noqotay waxa uuna ku dhawaaqay hadallo aad moodo fariin la soo faray oo dadkii odhan lahaa ay ka gaabsadeen ama ka xishoodeen ama ay ka cabsoodeen in ay colaadda sii huriso laakiin isaga ayaa runtii la soo faray fariintaasna waxa uu soo gudbiyey aflagaado hanjabaad iyo in uu leeyahay dagaal baanu yani dagaal iclaamiyey marka bal hadalkiisa gadaal ayaynu ka falanqeyn doonaa qodob baynu soo qaadan doonaa bal hadalkiisan ila dhageyso dhowrkan eray ee uu leeyahay waa dhowraya dadkiisa dhimasho iyo dhiig baa laga warwareegaya ما حد قليما نجمع واحد كان نجت هاي دتكي نيجتكون كديرانين runtii waxaa la yaab leh in uu leeyahay doqonnimo nagama aha waxaan isleenahay dhiig daadanin already dhiigi waa daatay guriyihii way burburiyeen awoodooda way isticmaaleen tamar u dhimani ma jirto boqolaal qof baa dhintay boqolaal kun oo qof baa qaxay boqolaal baa dhaawacmay guryo badan baa dumay askartiisii dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay maamulkii Somaliland samcad darro badan baa soo wajahday awood hadda ay la hadheen ma jirto laakiin waxa uu caqligiisa leeyahay dhiig inaanu daadinaanu diidayna wixii inta dhiig soo daadanayay uma arko in dhiig oo daata uu yahay marka hadalkaasi waa hadal micnaha ka dhacay oo ay muujinayso in uu yahay nin aan ka fiirsanan erayada uu leeyahay dagaalku intuusan bilaaban ka hor hadduu odhan lahaa hadalladan oo kale macquul bay ahaan lahayd uu yidhaahdo dagaalka ma doonayno waxaanu diidaynaa in dhiig daato iyadoon dhiig daadan waa macquul laakiin iyadoo dhiig daatay oo dad badan dhinteen labada dhinacba oo guryo badan maaragtay ay dumeen oo boqolaal kun ay qaxeen oo adduunka oo dhan ogaaday in uu yidhaahdo dagaalka waxaanu uga gaabinaynaa in dhiig daataanu diidaynaa dagaalkii kamaad gaabinin dhiigina waaba daatayba marka hadalkaasi waa hadal runtii aad u hooseeya waxaad dhanka kale iyana eegi kartaa body language-kiisa oo runtii ay ka muuqato cabsi badan duulduul faraha uu taagtaagayo boodbood stress ay ka muuqato cabsi badan ay ka muuqato marka runtii hadalkaasi waa hadal aad daciif u abu ahaa oo muujinaya jabka soo gaaray maamulka Somaliland waa calaamad ka mid ah calaamadaha muujinaya dhaawaca ay ka qaylisiinaya ee gaarsiiyey xitaa dadkii masaakiinta aan hadli jirin in la yidhaahdo hadla bal qodobkan kalena waad ila fiirin doontaa aan isna ila fiiri nabadu baryo kuma timaado haddii walaalku gali badiyo nabadu ima weydo waxay ku imanaysaa xoogga ku yeesha nabadu inay nabad qaataan iyo saacada boqolka qof ee konton qof meel jooga qarankan maanta iska bixi karo qarankani afar iskaashi wala dubi kari waaye oo adogeedeen oo yab house laba sano jiray iyo shan iskaashi maanta cid iska celi kartaa ma jirto haddana waxaynu iskor taagnaa hadalladan uu leeyahay hadallada uu leeyahay waxaa ka mid ah inaan xoog ku qabanayno oo awood aanan ula hadhin horta awood uu la hadhay hadda maba jirtaba oo waa la ogyahay hadda SSC iyo maamulka Somaliland ciidan ahaan waxba kuma kala qarsoona waxa weeyaan waxaan oran karaa maamulka Somaliland Laascaanood baa lagu bikir jabiyay waxa weey waa la qaawiyay marka waa ka shifan yahay awood hadda u harsan oo uu sameyn karo male madfacu magaalada ku soo tuuro tignika uu rido waa la ogyahay deegaamadii oo dhan waa laga soo saaray ma jirto magaalo hadda ay haystaan waxa weey gooj cadi hareerihiisa difaac kaga jiraan godka tamar u hadhayna ma jirto marka awood uu la hadhay ma jirtaba waa lagu ogyahay waa micnaha tamar darra hanjabaadina waa hanjabaad tamar darra tan kale uu ka qiyaas qaadanayo ilaa 94 ayaa la dagaalamay oo xoog baa lagu muquuniyay dadkii 94 dagaalamay oo uu jeedo beesha garxijis oo uu ku diganayo oo uu leeyahay sidii loo idbiyay baan idin idbinaynaa horta qiyaas khaldan buu qaatay xilligu horta xilligii ma aha dadkuna dadkii ma aha waa kala nooc beesha garxijis waxay degan tahay deegaamada isaaqu dago
oo burcay degan yihiin oo lala degan yahay waxaa lala hargeysay wada degan yihiin berberay degan yihiin cirigaabay degan yihiin ceelafweyn bay degan yihiin meelahaas oo dhan marka dagaaladu ka dhacaan laguma kala bixi karo maxaa yeelay magaaladii burco oo bari iyo galbeed la degan yahay garxajiskaa qabsaday waa tii yurowa ay usoo qaxaysay jeegaanta hadda oo markii horena sufalo lahayd sida oo kale hargeysa dagaalo badan baa ka dhacay waxa weye sida oo kale berbere waa loogaya wixii ka dhacay deegaankii kuma kala bixi karaan oo way wada leeyihiin magaaladii bay wada leeyihiin marka taasaa dhibaato keentay runtii wuu ku khaldan yahay dhulbahantaha ama hartiga iyo isaaqu dhulka ma wada degaan waa deris weeye magaalo ay wada degaan ma jirto aan ceerigaaba ka ahayn magaalooyinku dhinaca isku hayaan dhinaca galbeedka markasta naga xigaan annaguna dhinaca berigaanu ka xignaa ma jirto magaalo la wada degaa ceerigaaba mooyaane marka dagaalku markuu dhaco qabaa'iladan hartigu xuduudayda soo xidhanayaan deegaamo gaaray leeyihiin sida oo kale deegaamadan hartigu degan yahay ma aha isaaq waa qabaa'ilo kale weeye oo dad kalaanu nahay annagu ma nihin annagu snm ma nihin isaaq burciyo hargeysiya berbere ma degno gabiley ma degno annagu boorame ma degno dad kalaanu nahay oo deegaamo kala degan oo qabaa'ilo kale ah oo dhaqankii iyo wax badan inoo dhexeeyaan oo dhulkii inoo kala duwan yahay marka dagaalku markuu dhaco caadi baa loo kala soocmayaa ganacsi ahaan juqraafi ahaan demografi ahaan economically ahaan marka waxaan uu ka qiyaas qaadanaya ee 94tii beesha isaaqo isdhexdooda isdishay oo beesha garxijis la muquuniyey oo la ogolaysiiyey si khasaba sanka laga geliyay inay Soomaaliland qaataan ilaa ay haddana lagu khasbo oo lagu hayo oo xukunka laga ilaaliyo oo doorashada laga ilaaliyo oo la aflagaadeeyo oo sida loola dhaqmayo aynu aragnay anagu ma nihin kuwaas oo kale kuwa kalaanu nahay halka waad ku khaldantay marka ciidan iyo awood ku hadhayna ma jirto bal qodobkaasna halkaasaan ku dhaafayna qodobkan kalena bal la fiiriya nabadgelyada idinka bari maayo wixii taliya tusaalana waa laga qaadanayaa nabadu baryo kuma timaado haddii walaalku gali badiyo nabadu ima weydo waxay ku imanaysaa xoogga ku imanaysaa nabadu adduunyada maxaa loo samaystay maxaa adduunyada kharash loo geliyaa ciidan loo geliyaa nabadu markay ka fursan weydo wanaag iyo talada iyo tusaale tasliixda la mariyo iyo wadahalka haddii dhaaf weydo khatar ninku hadda uu gaadho markuu isgaadhay cunaha iska xidho xariga gacanta loo tagaya dee qofka bini'aadanka hadduu soo taago qofka madaxa waa si goynaya adigu kama qaban kartid hadduu isagu soo taago oo qofka wanaagii diido dee waxay tagaysaa in laga badbaadiyo inta kale laga badbaadiyo looma dul qaadanayo walaa wariye walaa madax dhaqameed ciddii dhaafsan xuduud soo dhaafta looma dul qaadanayo laakiin qofka waxa loo golyahay tilmaam iyo talo tusaale loo bixiyo ugu dambeyn waxa uu yidhi cidna loo joojin maayo ama saxaafadda ha ahaato ama madax dhaqameed ha ahaato ama cidda doonta ha ahaato lagu joojin maayo qodobka kale oo isticmaalay waxa weeye luquntaada siriq gelisay adaa istilay camal runtii ninkaasi waxa uu moog yahay cidda siriqda gashay inay Soomaaliland tahay maamulka Soomaaliland wuxuu ahaa maamul jira oo maxay ahayd deegaan xukuma oo ciidan leh oo siyaasad iyo hab u nool oo ama been ama propaganda ba ku jir dhisnaade wuxuun baa dee muuqday humaag laakiin hadda waa kashifmay oo luqunta ayuu siriq la galay inta siriqda la gashay luqunta waa maamulka Soomaaliland kow maamulkii baa ka burburay labo dhul aad u fara badan bay waayeen saddex qabaa'ilo dhan baa ka soo horjeestay afar ganacsigoodii iyo isu socodkoodii iyo noloshoodii dadkay ku xidhnayd ayay jareen oo la dagaalameen waayo maamulka burciyo hargeysa ka dhisani lama ganacsan karo Soomaalida kale ilaa uu soo dhex maro dadkan la dagaalamayo hadduu isna dhanka wajaale aadna wuxuu marayaa dowlad deegaanka Soomaalida oo shalay lahaa wayna la dagaalamayaan qabyaaladda iyo hadalka ay la dooranayeen hadduu isna dhankan Soomaaliya soo aadna wuxuu ku khasban yahay inuu hartiga soo dhex maro marka dadka uu la dagaalamayo ayaa ganacsigiisu ku xidhan yahay oo siyaasadiisu ku xidhanta waayo siyaasadiisu waxay ku xidhan tahay in deegaamada yadan uu hadda la dagaalamaya la jiraan isaga marka deegaamadii siyaasadiisu ay ku xidhnayd ayuu dagaal la galay deegaamadii ganacsigiisa iyo dhaqaalihiisa ku xidhnaa buu dagaal la galay deegaamadii uu maxay ahayd dariska la ahaa buu colaad la galay marka burciyo hargeysa iyo berbera halkaas ayaad leedahay aad joogaysaa iyo tuulooyinka ku hareeraysan
marka siriq cidda gashay waa maamulka Somaliland siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo maxay ahayd military ahaanba deegaamadana waa hubal in laga saarayo tan uu leeyahay cidna loo joojin maayo dee runtii haddaad joojisaba cid fuulaysa gaadhigaaga ma jirto maxaa yeelay Somaliland maamulka la yidhaahdo dadkani maba aha waa SSC Khaatuum ay leeyihiin way ka baxeen garaadadoodii cuqaashoodii siyaasiyiintoodii ciidankoodii xataa kuwii adiga kula joogay ee ururada siyaasadda ku jiray ayaa maxay ahayd ka baxay meeshii ciidanka dagaalamaya hadda ee ka dagaalamaya Laascaanood waa beesha maxaan dhahdaa jeegaanta la yiraahdo iyo beesha Samaroon iyo dhowr qof oo kale ay soo duufsadeen oo maartay ay duufsadeen marka waa la fahamsan yahay in aad fashilan tahay oo aad siriq luqunta kula jirtid runtii waxaan leeyahay deegaanada SSC ka saara dadka sidaa u fakaraya ee madaxweynaha ku-xigeenkoodu saa u hadlayo ee madaxweynahoodu saa u hadlayo oo aad Maxamed Kaahin ogeydeen oo aad Cali Barre ogeydeen oo aad Nuxtaani ogeydeen oo aad hebelka bootaan aragtaan soo u hadlayo waa istad isku qabiila oo colaad iyo dagaal iyo aggressive ah waad arkayseen Burco iyo Hargeysa dabaaldegi laga dabaaldegay markii Laascaanood la garaacayay waad arkayseen maxaabiista ay qabtaan sida ay ula dhaqmayaan ee ay maaragtay u bahdilayaan ee ay u dhaqmayaan dadkani waa dad colaad iyo cuqdad iyo argoosi iyo dhibaato ay ku furan tahay maskaxdooda frustration badan baa ku furan dad hogaamin kara cid ama cid maamuli kara ama wax lala wadaagi karo ama xataa deris lala ahaan kara ma aha marka waa in laga saaro waana laga saarayaa haddana waxay ku hadheen Gooja Cadiya hareerihiisa sidaas iyo barnaamijkan intaas ku soo koobaynaa iyo fashilka Somaliland waxaan ka codsanaynaa in aad ku xidhnaatid channelkan oo nala wadaagtid falanqaynta iyo faallooyinka